dunidu waa la yaab u joog. Maalin walbana waxaad arkaysaa wax hor leh oo aad la tacajabto amaba ka yaabiyo. Nin haysta diinta Buddhistaha isla markaana wadaadka ah oo dhashay dalka Thailand ayaa noqday mid si aad dadka uga yaabiyay marka loo eego ficilada uu samaynayo. Ninkan ayaa caadeystay in marka cibaadada diintiisa uu samaynayo amaba uu dadka u ducaynayo in uu daxfaristo digsi weyn oo salid karkareyso ay ku jirto. Kaaga sii darane haddana dabka saaran. Muuqaal laga soo duubay ninkan oo lagu baahiyay baraha internetka gaar ahaan YouTube-ka ayaa haddii aad milicsato waxaa kuu muuqanaya in digsiga salidda karkareyso ay ku jirto ee uu ku dhex jiro ninkan uu haddana saaran yahay dab aad u shidan oo holaca ka baxayo xitaa isaga qudhiisa uu kor u dhaafay. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Nong Bua ayaa ka soo jeeda gobol lagu magacaabo Lamvu oo ku yaala dalka Thailand. saynisyahanno u kurgalay wuxuu ninkan samaynayo ayaa ku sifeeyey inay tahay nooc cajaa'ib ah oo ka mid ah sixirka ama waxa loo yaqaano indhasarcaadka. Arrintan ayaana horseeday inuu helo taageero aad u ballaaran oo ah dadka diintiisa haysta sida weyna u jeclaanaya. Kaaga sii darane qaar ka mid a dadka ayaaba ficilkaas dartiis u go'aansaday in ninkan ay caabudaan.